Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wanaagsan daawadayaal, halkani waa channelka wararka ee Somali News. Ku soo dhawaada taminteena habeen qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya qarax khasaare geysta oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Al-Shabaab oo war ka soo saaray halka ay la doonayeen iyo shakhsiyaadka ay la beegsanayeen qaraxa ka dhacay Muqdisho. Booliska Soomaaliya oo faahfaahiyay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi iyo tillaabooyinka xiga oo ay qaadi doonaan baaqna u diray shacabka Soomaaliya. Wasaaradda Amniga Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo fasaxday dibadbaxyo maalinta Khamiista oo bariya lagu wado inay ka qabsoomaan magaalada Muqdisho. Midowga musharaxiinta oo isku maandhaafay kadib kulan ay maanta yeesheen banaanbaxa Muqdisho iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo la kulmay safiirada dalalka Turkiga, Sweden iyo Qatar. waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan warka ku tabideena qodobada iyo kuwa kale u diyaar garooba daawadayaal. markale kulan wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno. haddii aynu ku bilowno waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay qarax geysta khasaare isugu jirta dhimasho dhaawac kaas oo ka dhacay wadada 21 Oktoobar ee degmada Waabari ee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa lala beegsaday mas'uuliyiin ka tirsaneed dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil ka socota qaramada midoobay oo maraysa wadadaasi, waxaana sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi Al-Shabaab ayaa war ka soo baxay lagu sheegtay mas'uuliyadda qaraxaas waxayna xuseen in ay ahay ujeedkooda qaraxaas ay la beegsanayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan qaramada midoobay oo sheegeen in qaar ka mid ah ku dileen qaraxaasi waa sida hadalka u dhigeen. qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho ayaana sababay burbur xooggan oo soo gaaray goobaha qaraxa ka dhacay iyo gaadiidka wadadaas maraya iyo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee shacabka ka soo gaaray iyo saraakiisha ciidan ee halkaasi ku socdaalaysay. afhayeenka ciidanka booliska dowladda federaalka ee Soomaaliya oo qaraxa kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha qaraxa maanta ka dhacay Muqdisho ka dhashay. afhayeenka waxa uu xuseen qaraxaas ay ku dhinteen 5 ka mid ah ciidamada goobtaas marayay iyo sidoo kale 4 qof oo dadka shacabka ah, tirada isku geynta oo ah 9 qof, waxaana ka dhashay dhaawac intaasi ka badan oo lagu dabiibay goobaha caafimaad ee magaalada Muqdisho. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in baaritaan wadaan iyo sababta uu qaraxaas u dhacay, waxaana ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in saraakiisha ciidamada kala shaqeeya sugitaanka amniga isla markaana ay doorkooda qaataan si loo xaqiijiyo amniga oo aysan u dhicin khasaaraha noocan oo kale ah sababayaan qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho. saraakiisha ciidamada booliska ee ugu sareeya taliyaha guud ee booliska ee gobolka Banaadir Farxaan Qoloole oo goobtaasi tagay maamul iyo xubno ka socda maamulka gobolka Banaadir ayaana saraakiisha ciidamada booliska gobolka Banaadir ku amray inay dardar geliyaan amniga iyo sidaysan u dhicin lahayn falalka noocan oo kale waayihii dambeba magaalada Muqdisho aysan qaraxyo ka dhicin. qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa waxyeelo badan ay ka soo gaartay dadka shacabka ay wadadaas adeegsanaya oo isugu jiray arday, jaamacadaha iyo iskuulo iyo sidoo kale wadayaasha gaadiidka iyo burbur xooggan oo soo gaaray goobihii ganacsi iyo dhismayaashii wadadaasi ku yaalay. sawirada baraha bulshada lagu baahiyay ayaana muujinaya burburka xooggan oo sababay qaraxa maanta ka dhacay wadada 21 Oktoobar ee degmada Waabari ee magaalada Muqdisho ee Afisyooni. wasaaradda amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa fasaxday banaanbax maalinta Khamiista oo bariya ay mucaaradka ku qaban doonaan magaalada Muqdisho kaas oo laga soo horjeeda madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. banaanbaxan oo maamulka gobolka Banaadir hore war uga soo saareen oo sheegeen in aan lagu qaban karin Muqdisho ayaa guddiga qabanqaabinaya hore u sheegeen in ay fasax ku haystaan wasaaradda amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya. saraakiisha ciidamada booliska gobolka Banaadir ayaana lagu amray inay ka shaqeeyaan sugitaanka banaanbaxaas weyn oo bari ka qabsoomaya magaalada Muqdisho kaas oo laga soo horjeeda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tillaabada afgambiga heed uu qaaday 27 Diseembar ee sanadkii hore ayna soo dhaafnay. xogta sida aynu ku helnay midowga musharaxiinta qaar ka mid ah ayaa maanta isugu yimid kulan kaas oo diiradda ay ku saarayeen arrimo ku saabsan banaanbaxa bari ka dhacaya Muqdisho oo iyaga ay salka ka reexayaan iyo sida uga qayb gali lahaayeen. qaarkood ayaa la sheegay inay isku khilaafeen banaanbaxaasi maadaama ay xuseen in cabashadoodu ahayd in doorasho dalkan hufan laga qabto isla markaana madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday uga soo horjeedeen arrimaha doorashooyinka haatan laga heshiyo oo dalka uu doorasho u dhaqaaqay xiisadii adkeedna ay dintay. Farmaajo oo taageeray golaha wadatashiga qaranka sheegana in dalkan tilaabada kaliya ee qalaasaha siyaasadeed haatan looga bixi kara ay tahay inuu doorasho aado.
xasan cali khayre sheekh shariif sheekh axmed ayaa la xusay in ay diideen in banaanbaxaasi berri la qabto halka cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sidoo kale xasan sheekh maxamed oo horey banaanbaxa u taageerana ay sheegeen inay ka qaybgeli doonaan. khilaaf laba dhinac ah ayaana midowga musharaxiinta ka dhex dhashay waxayna sidoo kale xuseen in banaanbaxa berri shacabka muqdisho ay ka qaybgalayaan ay ka dhalan karto isku dhac ciidan maadaama maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda amniga isku maandhaafsan yihiin sida uu dhacayo taas oo shacabka khasaare xoogan ka soo gaari karo. sidoo kalena waxaa banaanbaxaasi berri dhici doona mugdi geliya qaraxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo sababay dhimashada shacab iyo saraakiil ciidan. shakhsiyaadka qabanqaabinaya banaanbaxan oo la baxay madasha banaadir ayaana sheegay inay berri oo maalinta khamiista ah oo ay dhigi doonaan banaanbaxyo waaweyn oo fagaarayaasha muqdisho ka qabsoomi doono taas oo qayb ka tahay daljirka dahsoon. maamulka gobolka banaadir oo taliyaha booliska iyo sidoo kale Cumar Finish maalmihii dambe kulamo gaar ah ay u yeesheen sidii ay uga hortagi lahaayeen ayaana la ogeyn suurtagalnimada siduu u qabsoomi karo haddii ay iyadu oon lagu heshiin dhacana waxaa ka dhalan karto ismaandhaaf ciidamada soo kala dhexgala taas oo gacan ka hadal isku bedeli karto. dalka oo haatan doorasho aadeen maadaama golaha wadatashiga qaranka shirkoodii muqdisho kusoo gabagabeeyay la isku afgartay in doorashada 45 cisho lagu soo gabagabeeyo haddana banaanbaxan ayaa berri isha lagu wada hayaa iyo sida midowga musharaxiinta oo haatan dhankooda isku khilaafsan ay uga dhabay doonaan sidii u qabsoomi lahaa. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo magaalada ku sugan Muqdisho ayaa maanta kulamo la kala qaatay safiirada dalalka Sweden, Qatar iyo sidoo kale Turkiga. safiirada dalalkaas oo Siciid Cabdullaahi Deni saacado isku dhow la kala kulmay waxa uu kala hadlay xaaladaha guud ee dalka, arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale khilaafka xilligan ka taagan deegaanada Puntland maadaama isimada Puntland ay ka war ka soo saareen xaaladda Boosaaso iyo khilaafka PSF iyo xukuumadda Deni u dhaxayso. Siciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale safiirada dalalka Sweden, Turkiga iyo Qatar waxay ka wada hadleen xaaladaha horumarineed ee deegaanada Puntland iyo abaaraha ka jira sida dowladahaasi ay door uga qaadan lahaayeen iyo arrimaha doorashooyinka oo haatan dalku aaday. Siciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulka Puntland oo maalmihii dambeba ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa kulamo kala duwan la qaatay safiirada dalalka saaxiibada Soomaaliya ee taageera Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho. kulanka safiiradan ayaana ku soo aadaya Siciid Cabdullaahi Deni oo maanta magaalada Muqdisho kula qaatay xilli uu ka baaqday safar maanta ku jeeday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas kadib markii isimada maamulka Puntland xalay war ay soo saareen ku sheegeen in agaasimihii hore ee xilka ka qaaday PSF ay soo hay doona hay'adaasi isla markaana loo baahan yahay in labadooda wada hadal rasmi iyo gogol dib u heshiisiineed loo fidiyo. xukuumadda Siciid Cabdullaahi Deni qaar ka mid ah golahiisa wasiirada ayaana ku tilmaamay hadalka duubabka dhaqanka ee Puntland mid sharci darro ah ee baalmarsan ee dowladnimada. waa sida Xuseen madaxweynaha Puntland oo Muqdisho ku sugan ayaana la rajeynayaa in maalmaha soo socdo uu socdaal ugu ambabaxo deegaanada Puntland oo laga sugayo inuu doorashada iyo xiisada Boosaaso uu soo gabagabeeyo. inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamij wareedkan aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News. fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaro daawada sii share garay oo saaxiibadaada kale la sii wadaag page-keena Somali News-na haddii aad ku cusub tahay ku soo biir YouTube-keena sidoo kale booqo si aad u hesho xogaha aynu halkan ku baahinay joogtada ah. mahadsanidin.